bismillaah dhammaanteen waxaan u baahannahay inaan u korno si dareen ahaan iyo si caqli ahaana waana wax dadkoo idil ay wada raadinayaan inay helaan dareemo degan oo noloshooda xasilooni ku keeni kara iyo habfikirro wanaagsan oo noloshooda isbeddel qurux badan kusoo kordhinaya inta badan maskaxda shaqada inoo qabato waxay tahay in ay inoo kaydiso ama inoo aruuriso aqoonta iyo xirfadaha iyo waxyaabaha u baahan kaydinta qalbigana wuxuu inoo hayaa oo inoo aruuriyaa xigmadaha nolosheena saameynaya oo ku dhisan dareemada iyo waxyaabaha la midka ah haddii aad rabto inaad noqoto qof guulaysta oo nolosha macna iyo miradhal ka sameeya waa inaad isticmaashaa oo aad maalgashataa aad kobcisaa maskaxdaada haddii aad rabto inaad noqoto qof ixtiraam badan la siiyo la jecel yahay la qadariyo naftaadana ay ku siiso qadarinta in ka badan waa inaad maalgashataa horumarisaa oo aad waqti ku bixisaa maareynta dareenadaada oo taasoo micnaheedu noqonayso inaad horumariso ama tayayso qalbigaaga maskaxdii qalbigan waa wax aasaaska qof walba inuu ka shaqeeyo horumarinteeda uu ka ilaaliyo fariimaha soo galay ee xun ee uu ku ilaaliyo fariimo wanaagsan oo noloshiisa kobcin karta marka si guud waxay noqonaysaa haddii aad rabto inaad noqoto qof guulaysta waa inaad isticmaashaa maskaxdaada haddii aad rabto inaad noqoto qof ixtiraam iyo jacayl iyo qadarin hela waa inaad isticmaashaa qalbigaaga haddii intaas aad samayso noloshaada waxay noqonaysaa mid miro dhala dahab iyo diamond waa labada shay ugu qaalisan dunida balse kuma iibin karaan qalbi iyo maskax haddii qalbi iyo maskax aad haysato waxaad ku iibsan kartaa dahab halka waxaad ka dareemi kartaa muhiimadda inuu leeyahay qalbiga iyo maskaxda marka waa inaan aroor walba u soo kacnaa ilaalinta korinta tayeynta maalgelinta qalbiga iyo maskaxdeena anigu waa Cabdi Fataax Qaasim Cali